sidoo marka scholarship la dhaho waxay u qaybsantaa laba qayb mid waa scholarship oo full scholarship ka ah ama minxada oo ama deeqda oo dhameystiran waa qofka marka waxbarashadiisa iyo noloshiisa la cover gareynayo wuxuu ku noolaan lahaa meeshuu degi lahaa wuxuu cuni lahaa waxa dhan scholarship noocaas oo kale ah inta badan ma badna waxa ugu badan scholarship-yada leh tan waxbarashada laga dhaafayo tuition fee waiver scholarship ama tuition fee scholarship marka scholarship-yada oo wax laga dhaafayo fee wax lagu baranayo laakiin wixii noloshaada iyo deegaanka adaa iska bixinaya kuwaasna mataqaanaa ayagana way jiraan maxaa la dhahaa scholarship-yada noocaas marka scholarship waxa jiro partial half tuition fee laga wada dhaafayo laakiin waxa laga dhaafaa 50% ama 75% ama wixii jaamacad wixii isla garataan ama waxa waxbarashada qayb bixinaysa qayb waa laga dhaafaya marka waxa jira wadamada qaar scholarship waxay ugu siinayaan waxa jira wadamada adduunyada waxay leeyihiin jaamacadahooda ardayda waxay ku bartaan jaamacadaha waxa loo qaybiyaa public iyo private midda publica dawladaha maalgeliya marka lacag la'aan almost waa lacag la'aan ama lacag yar lagu bartaa waxa dhici karta kulliyadii maadadii in lagu baranayo sanadkii in ardaygu uu bixinayo $50 marka lacagna ma ahan oo $50 marka sanad maado engineering ku baranayo lacag ma aha at the same time hadana lacag la'aan ma aha marka scholarship jaamacadaha qaar adduunka waxa laga helaa sida hadda India oo kale iyo Bangladesh oo kale iyo even Pakistan oo kale wadamadan South Asia ka dhahan waxa laga helayaa scholarship noocaas oo kale ah dawladdu waxay ku siinaysaa scholarship micnaheedu waxbarasho waxa wax u baranaysaa sida qof oo local inaad tahay waxa bixinaysaa fee-ga qofka localka uu bixinayo marka waxa kugu soo aadayso fee aad u yar isla weydiintaas nuur hora haddaan ku sii waxaad ka warcelinayso noocyada isugu jiraan deeqahaas waxbarasho waxa weeye duruuftii hadba ku xiran tahay tusaale oo kale anigu waagii aan joogay Jordan oo ahaa wadan aan waxbarasho u tagay waxaa jirtay 10 arday oo la siin jiray dawladda Soomaaliya waxaa la siin jiray kulliyado kala duwan oo laga soo bilaabo caafimaad engineering oo noocyadiisa kala duwan la computer leh oo maaragtay civil engineering leh dhaqaale artist iyo noocyada kala duwan waxaa dhacday in musuqmaasuq iyo dhibaatooyin ba'an iyo maaragtay cadaalad darro iyo ku takrifal arintaas ka wada dhaxaysa Soomaalida ay maaragtay sameeyeen adoo qoliyay gacanta ku hayay taasna waxay kaliftay in maaragtay wixii la siinayay dawladda la yareeyo oo kulliyadihii lagu qori jiray aan lagu qorin luqadaha sida Carabiga iyo Ingiriiska iyo Juqraafiga iyo oo iyagana kulliyada fiican dabcan laakiin aan ahayn sida kulliyadaha kale ama qof jeclaayo oo kale medicine uusan heli karin ama qof engineering jeclaayo kale uusan heli karin sababaha aan soo xusay oo ah in qaabkii loogu talagalay aan loo maareyn darteed sidoo kale waxaa jirta Turkiga isagana oo aan dareemayno ama aan la wada soconno in sidii uu ku ahaa deeqa waxbarasho ee Soomaaliya uu siin jiray uusan hadda ku ahayn sababta keentayna ay tahay in dad aan dhamaystireen ama awoodii waxbarasho ama capacity ay uga faa'iideysan lahaayeen deeqahaas waxbarasho aan haysan deeqihii laga gato iyadoo la eegayo ama qabiil ama maaragtay qaraabakiil waxaan ay yiraahdaan ama lacag laga qaatay la eegayo oo ardaygii asoo aad u fiican oo dadaalayay oo maaragtay ka soo bixi lahaa booska haddana hadii una lacag haysan laga yaabo inuu taas ku waayo hadii una qaraabo la ahayn cidii markaa dheriga gacanta ku haysay uu laga yaabo inuu taas ku waayo marka arrimahaas waxay keeneen musiibo ah in dadkii loo geynayay ardaydaas ay arkaan in ardayda inta ugu badneed aynan fid u ahayn ama ayna haysan awoodii ay uga soo bixi lahaayeen waxaas loo dhigayay ardayda ku dhoodana niyad weyn ay ku abuurtaa marka arday la yiraahdo waxaad baranaysaa medicine ama waxaad baranaysaa engineering oo uu yahay arday aan tabarteeda iyo awoodeedii lahayn markii badii intii lagu dhaxrido uu dabaalan waayo waxay keenaysaa in noloshiisa si nafsi ah xitaa isaga u saamayso sharafta wadankii ay saamayso wadankii la geeyay ardayga naftirkiisana u kalsooni darro iyo maaragtay hoos u dhac weyn uu ku yimaado taasna ay keento in uu yareeyo kulliyadihii kala duwanaa ee uu siin jiray markaan su'aashaadii u soo laabto kulliyadaha hadda la siiyo Soomaalida intooda badan kuma jiraan kulliyadaha medicine-ka iyo maaragtay engineering-ka uma badna mostly hadda wadamada aan soo xusay qaarkood waa joojiyeen markii maaragtay
ay arkeen cadaalad darrada iyo maaragtay dadka loo soo dirayo oo qaarkood ay qaxooti iska qoraan qaarkood darbiyada ka boodaan marka waxaas oo dhan waxay keentay in maaragtay laga aamin baxo dawladda wadamo fara badan saas ay ku saameysay deeqii waxbarasho ay heli lahaayeen marka haddaan su'aasha u soo laabto mar kale waxaan u malaynayaa kulliyadaha hoose unbay maaragtay u badan yihiin deeqaha waxbarasho ee dawladda ay hesho ama hay-adahaas ama dawladahaas ay soo bandhigaan